kulanti haboon daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Runmal Media alaba halkan waxa idinkugu soo gudbinaa xogii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwooda ugu waaweyn intaad muuqaalka daawanaysana waxa ku soo gudbin doonaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ka badbaaday isku day dil ay qorsheysay Iran wasaaradda gaashaandhigga Israa'iilna Iran waxa ay la simtay dhulka xogii u dambeeyay ayaa halkan kugu soo gudbin doona Mareykanka waxa uu xilligan uu ka fikirayaa wajiga labaad ee dagaalka ka soconaya bariga dhexe xilli Iran ay si laba jibaartay weeraradeeda iyo sidoo kale duqeymaheeda bartilmaameedka waxa sidoo kale muuqaalkan ku daawan doontaan Talyaaniga oo markaan gurmad u fidinaya wadamada Khaliijka Carabta xilli Trump uu ka soo horjeestay inuu caawiyo xogii u dambeeyay bariga dhexe naga soo gaaraya ayaa halkan kugu soo gudbin doona hadii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhegan balelkana furso ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga subscribe inoo taayna muuqaalka inoo share garay like inoo saar si uu gaar asxaab badan wad ku maasantahay daawashadaada Iran waxa ay furisay duqeymo bartilmaameed oo ka dhan ah Israa'iil iyadoona gantaalo kuwa ridada dheer ay si toos ah ugu garaacday ama baa la bartilmaameysatay wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil ee ku taala dalkaasi iyadoona wasaaradda dhulka lala simay markaana Israa'iil waxa soo gaaray khasaarihii ugu badnaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka oo galay maalintii lixaad iyadoona Iran markaan ay si laba jibaartay weeraradeeda iyo sidoo kale duqeymaheeda bartilmaameedka ah Mareykanka xilligan waxa uu ka fikirayaa wajiga labaad ee dagaalka ee ka soconaya bariga dhexe iyadoo dagaalkan uu soo bilowday 28 Febraayo maantana uu galay maalintiisii lixaad waxaana dagaalka uu noqday mid sii xoogeysanaya maalinba maalinta ka dambeysa iyadoona ee dagaalkaasi ay sii hurinayso Iran maadaama Iran ay markaan u socoto argudasho oo ka dhan ah hogaamiyihii ugu sareeyay ee dalkaasi Iran Ayatollah Ali kadib dilkiisa waxa ay sameysay Iran weeraro bartilmaameedyo sidoo kale dagaal toos ah oo la galayso wadamo kamid ah Khaliijka Carabta iyo sidoo kale wadamo kamid ah ee bariga dhexe iyadoona xilligan Mareykanka uu walaac xoogan uu ka muujinayo laba jibaarka ee dagaalka Iran iyo sidoo kale duqeymaheeda bartilmaameedka inkastoo Iran horey loo soo gudbiyay wada hadal kaasoo ay soo gudbisay Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil inkastoo Iran gabi ahaanba ay diiday inay wada hadal ay gasho isla markaana ay dagaalka ay sheegtay inay sii xoojinayso iyadoo Iran mar kale ku hanjabtay in dhankeeda hadii wadan uu talaabo u soo qaado ay ka bixin doonto jawaab kulul taas oo la micno ah inay qaadi doonto weeraro argudasho iyo sidoo kale bartilmaameed gaar ah iyadoo Iran intii uu dagaalkan uu socday saldhigyo badan oo military Mareykanka uu ku leeyahay wadamo badan oo kamid ah Khaliijka Carabta ay dhulka ay ku dartay isla markaana ay la bartilmaameysatay gantaalka nooca balastikada ee meelaha dheer laga hago iyadoona sidoo kale Iran ay sheegtay in marnaba aysan joojin doonin dagaalka ilaa iyo xaaladda ay ka noqonayso mid aad u qasan isla markaana ay argudan doonto dhinaca kalena waxa la soo warinayaa in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ka badbaaday isku day dil kadib markii shirqool ay u soo maleegtay Iran isla markaana ay ku doonaysay inay ku qaarijiso madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump wasiirka gaashaandhigga ee dalka Mareykanka war qoraal uu soo dhigay bartiisa X ayaa waxa uu ku sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ka badbaaday qorshe halis ah ay soo diyaarisay Iran oo ay ku doonaysay inay ku qaarijiso Trump balse uu sheegay ila sardoon ay xogahaasi ay heleen isla markaana Trump xilligii qorshahaasi uu fulayay meesha laga waday Trump markii uu ogaaday in Iran ay soo maleegtay qorshe ay ku doonayso waxa uu sheegay in arintaasi uu ku qoslay isla markaana uu ku tilmaamay Iran mar walba inay ku fashilmi doonto xogaha ama basirdoon ay soo maleegayso inay ku qaarijiso Trump waxaana Iran la ogyahay in dalkeeda ay ku sugan yihiin sirdoono badan oo u shaqeeya Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka kuwaas oo Iran xilligan aysan ku baraarugsaneen waxaa sidoo kale la sheegay in dilka hogaamiyihii ugu sareeyay Ayatollah Ali Khamenei xogtiisa ay dhiibeen ila sirdoon oo ku sugan dalka Iran kuwaas oo la shaqeeya Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil iyadoona xilligan ay gudbinayaan xogaha ama qorshaha ee Iran ay ku doonayso markii ay weerar ay rabto inay ku qaado Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil arintan ayaana waxa Iran ay ku haboon tahay inay dabagal ay sameyso isla markaana ay sameysato ila sirdoon kale oo la xiriira kuwa u shaqeeya Trump iyo sidoo kale Netanyahu
Dhinacana xiisada ka taagan bariga dhexe waxay saameyn xoogan ay ku yeelatay dal diris la ah Soomaaliya. xiisada ka taagan bariga dhexe waxay saameyn xoogan ay ku yeelatay duulimaadyadii ay sameyn jireen shirkadaha diyaaradaha. mid ka mid ah shirkadaha khasaaraha ba'an soo gaaray ayaa ah shirkadda Ethiopia Airways, iyadoona la sheegay in halkaasi uu ka soo gaaray khasaare badan maadaama ay joojisay duulimaadyadii ay ku tagi jirtay qaybo ka mid ah wadamo badan oo Iiraan xilligan ay ku wado duqeymo bartilmaameed ah, iyadoona saldhigyo military ee Mareykanka halkaasi ay ugu yaalaan. madaxa ganacsiga ee shirkadda ayaa waxa uu sheegay in dagaalka u dhaxeeya Mareykanka, Israa'iil iyo sidoo kale Iiraan uu galay maalinkiisii lixaad, isla markaana uu dhaawac weyn u keenay howlaha shirkadda ee duulimaadyada ay ku tagi jireen wadamo ku yaala bariga dhexe, iyadoona rakaab iyo sidoo kale noocyo kala duwan oo xamuul ah. waxa uu sheegay in maalintii 10 jeer magaalooyin kala duwan ay ku tagi jireen, balse xilligan ay joojiyeen duulimaadyadooda, taas oo sabab u ah dagaalka ka dhex qarxay bariga dhexe ee u dhaxeeya Israa'iil, Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan. duulimaadyada la joojiyay waxaa ka mid ah 3 duulimaad oo shirkadaasi si maalinle ugu tagi jirtay Dubai, halka Sharjah ay u duuri jirtay hal mar maalintii. si la mid ah waxaa joogsatay 3 kale oo ay ku tagi jirtay Tel Aviv, iyadoona isku darka 3 goor oo si maalinle ah ay rakaab ay u qaadi jirtay magaalooyinka Abu Dhabi iyo Cumaan. si guud waxaa lumay 15 duulimaad oo si maalinle ah ay ugu tagi jirtay bariga dhexe, waxaana la sheegay in halkaasi uu ka soo gaaray khasaare lixaad leh. haddii aan dib ugu laabano, Iiraan waxay beenisay in ay ka dambeysay diyaaradii iyo sidoo kale gantaarkii ku dhacay Azerbaijan, iyadoona sheegtay in marnaba aysan ka dambeynin amaba aysan lahayn diyaaraddaasi iyo sidoo kale gantaalkaasi, waxayna eedda dusha ay kaga tuurtay Israa'iil oo ka dhex faa'iideysanaysa khilaafka ka taagan bariga dhexe iyo sidoo kale wadamo ka mid ah Khaliijka Carabta. Iiraan ayaa horeyba u sheegtay in Israa'iil ay doonayso isku dirka wadamo badan oo ku yaala Khaliijka Carabta, maadaama xilligan Iiraan ay wado duqeymo bartilmaameed ah oo ay la bartilmaameedsanayso qaybo ka mid ah wadamada Khaliijka Carabta. Ruushkana waxa uu balan ku qaaday inuu taageero u fidin doono wadamo ka mid ah Khaliijka Carabta kadib markii Mareykanka uu iska fogeeyay inuu taageero u fidiyo kadib markii uu dagaalku uu soo geliyay, isla markaana uu qoorta isku geliyay wadamo ka mid ah Khaliijka Carabta iyo sidoo kale Iiraan, iyadoona Iiraan xilligan ay wado bartilmaameedyadeeda. Ruushka waxa uu sheegay inuu taageero iyo sidoo kale garab u fidinayo wadamada Khaliijka Carabta. wixii xogay ku soo kordhana muuqaaladeena xiga iyo idinku soo gudbin doona haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena. fadlan subscribe inoo dheggan baleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga. haddii aad subscribe inoo tahayna